مركز تبع معرفة تعالي حبيبي حبيبي معايا كلها Last 15 minutes in the final, while 1-1.
داوديال هذا واحد جول دليل كوحدة بيرمنغهام أو من الدقيقة قدام بي أما الدقيقة دي قدام بي لا يمي جول كيبر برناحة waxa hadda ciyaartu si toos ah u tagi doontaa rigoorayaal waana 3-3 ciyaartii aad xalad u la ayaa dhacday waxa halkan ku bareejay oo taagan macalinka iyo waliba laacibka kooxdaba waxaad la timaadeen goolkii barbardhaca ciyaartii daqiiqadii ugu dambeysay aragtaa goolkaas wallahi gool waxay ahayd oo rasmi waa u baahneen waa bareejeen in writing anaga lahayn laakiin hadda waa kana ilaahay dirtiisa aan ku raana hadda ku sheegaan وحقاق وراركي دونا Number 6. Number 7, goal. 2. Number 16 حمد قرار كسر هذا لا يغلط خشين باجي زيدان يا عنني انا كل شيء والله ايوه كونفيدنت شنتي قالوا كنت شفتها
Goal! Number 16. Goal! Number 4. وهاك داوديال وحوري ugu dambeeyay haduu dhaliyo way badiyeen koobkii waxa ku guuleystay kooxdii ka socday iyagu Holland ayaa koobkii ku guuleystay halka Tarbunkii ayaa soo cararay oo gooshi ku ordaya dadkii koobka waa laga badiyay koobkii ka socday dalka Ingiriiska waxaana laga badiyay Real Tourma ciyaartoyda ka socotay magaalada Birmingham oo nasiib darro ah looga badiyay Real horta waa laga badiyay ciyaarta laakiin dareenkaagu waa sidee hadda waa wali shaqo ku jira wali waxa maxaad u malaynaysaa Real ugu dambeeyay kii laaday muxuu ka fikiray markii uu laaday wallahi ma oge waxa soo warkaysay ciyaarta way fiicneed anoo badin karnay iyagana badinayeen iyaga badiyay marka waxa ugu dambeyntii maxaad ku oran lahayd taageerayaashii ku daawanayay kooxda wax ku oranay si fiican sameeyeen waa ciyaarnay waa baashanay وخسرناي next time better luck thank you very much هاي كوب English والله كان إني دوتش موسيقى تبي وهاك داوديال hadda waxaan la taaganahay I will speak English don't worry and you speak Dutch I will ask you English speak Dutch وهاك داوديال hadda waxaan la taaganahay mid kamid ah ciyaartoydii ku guuleysatay tartankan ee ka socday magaalada Holland su'aasha aan weydiinayna waxa weeye sida uu arkay ciyaarta and first of all can you share your feelings with us how do you feel now Ik voel mij geweldig we hebben een mooi toernooi gespeeld met Somalische jongens bedankt daarvoor en ik hoop dat volgend jaar terugkomen Okay waxaan filayaa aad buu ugu faraxsan yahay wuxuuna u mahadnaqayaa dadweynaha Soomaalida ka soo qayb galay intaas waa intaan ka fahansanahay luqadda Hollandiiska waa hagaag taageerayaasha ku dhaw waxaan weydiinaynaa kelmad ayaan weydiinaynaa sidee u arkaysaa ciyaartan wallahi aad ugu faraxsanahay maadaama kubadda aad laba qayb loo kala ciyaaray reer UK reer Holland ciyaarayeen finaalku iska baxeen aad xamaasad ugu haystaa maanta mid la qiyaasi karna maan aad ayaan ugu faraxsanahay koobka maanta UK ka qaatay sanadkii hore ayaan ay qaadeen wiligeena UK hadda meesha ay maato koobka ma qaadan doonto aad ugu faraxsanahay maanta koobka ay noo qaadeen kooxdeena ma sha Allah waa taageereynay waan ku faraxsanahay waad mahadsantiin وهاك داوديال haddana waxaan la taaganahay mid kamid ah ciyaartoydii ku guuleystay tartanka ugu horeyntii waxaan ku leenahay hambaliyo guushan aad u soo hoyseen magaalada Holland alxamdulillah waan ku faraxsanahay kooxdeena wallahi ma sha Allah way dadaaleen goortigeerigay maxraan prince maxraan wuu loo helay goobka hagaag maxraan waana kula joognaa 1 second maxraan kulli waxa ciyaartoy laga yaqaan dalka Ingiriiska maanta se waxaad ku ciyaaraysaa magaca Holland bal horta ka war ciyaartan maanta it was a fantastic game the opponents were very strong we played the first game we lost 3-1 so this was a battle and this is one of the best games and the strongest games that we played and I have experienced myself going 2007 to Finland and 2009 to Sweden and 2011 to Sweden winning the cup finally this year in 2011 I'm really happy about it. Finally Mahram and a lot of people are watching you there's a lot of fans that know you have won the Suzuki Cup you won the Super Cup and finally you won the futsal tournament 2000 it must have been a great year for you right? It's definitely a great year just here to show people that I'm not a bench boy and I'm definitely a starter so if you want me your team you better start me. Okay su'aasha ugu dambaysa dadka ay weydiinayaan waxa weeye ma ku noqon kartaa ma rabtaa inaad ku noqoto kooxda Leicester definitely 100% but whoever comes first I'll go with them. Finally waxaan ku leenahay hambaliyo guusha aad u soo hoysay dalkan Holland Thank you very much. Thank you very much. kooxdii halkan ku guuleysatay soo hoysay magaca iyo sharaftii dalka Holland macallin su'aasha ugu horeysa waxa weeye sanadkii hore koobkan dalkan uu ka tagay wuxuuna aaday Ingiriiska ka waran dareenkaaga sanadkii hore waxaan ku nimanay finalka ku nimanay laakiin sanadkan
finaalkii waanu nimanay insha allah ilaahay una loo garab galay waana qaadnay koobkii waan xog u baahanay sanadka dambeynaysa si laakiin aan ka soo qayb galno wax ma nooga sheegi kartaa farsamada aad la soo baxday laba jeer waxaad ka soo noqotay oo goolkii hore waxaad dhalisay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta markii lagu daray adaa laga dhaliyay dareenkaagu siduu ahaa dareenka uu kacsanaa aad buu kacsanaa laakiin ciyaarta markii ay socotay daqiiqadii ugu dambeeyay waxa salawaad baysan laakiin markii dambe waxaa ciyaartii gool laga dhashay laakiin haddana baatigii baa haddana ku badanay ilaahayna naga garab galay waad maasan tahay haddana waxaan la taagannahay Abba Nuur oo aad wada garanaysaan Abba Nuur ka waran tartankan sida uu soo gabagaboobay runtii ciyaartii gama dambaysta ahayd waxay ahayd ciyaarta ugu xiisaha badan ciyaar aad iyo aad la isugu xiiqay waqti lagu daray extra time kadibna penalties lagu kala baxay oo aad u dheeraa marka waxaan u hambalyeynayaa labadii koox ee finalka ciyaaray oo muujiyay ciyaar aad u wanaagsan oo dadkii ka soo qayb galay ay aad ugu riyaaqeen guud ahaan waxaan u hambalyeynayaa kooxdii koobka ku guuleysatay daawadayaal hadda waxaad u jeedaan abaalmarinadii loogu talagalay dadkii mutaystay intii uu tartankani socday goordhow waxaa bilaabmi doonaa biladihii loogu talagalay qabanqaabiyayaashii iyo ku u horay wakhtigooda qaaliga ah abaalmarinta ugu horeysa waxaa heshay TV-ga caalamiga ee Universal TV abaalmarinteeda waxaan ka codsanaynaa inay soo doonto Cabdulqaadir Maxamed Faarax Bire daawadayaal hadda waxaa la siinayaa biladii ugu horeysay kooxda Universal TV ayaa iyaka waxa lagu wareejiyay biladii ay ka TV-ga caalamiga ee Somalisat haddana waxaa loo yeeray kooxdan Somalisat si loo siiyo abaalmarin Somalisat waxaa u qaadaya waa tahay daawadayaal waxaad daawanaysaan Fuad Ahmed oo soo qaadaya biladii loogu talagalay telefishinka caalamiga ee Somalisat sidoo shahaado TV-ga loo yaqaano Somali for All TV xubin ka mid ah Somali for All TV halkan ay baad baliis TV-gan isagu ka dhisan magaaladan Holland la dhaho TV for All waa maasan tahay garsoore Cabdulqaadir Cadaay haddana waa garsoore Cabdulqaadir Cadaay ayaa guddoonsiinaya isagu garsoorayaashii tartankan qabanayay inta ay socdeen waa Cadaay ayaa loo wacayaa in uu bixiyo haddana albitarayaashii halkan iyo ku qabanayay tartankan ayaa la siinayaa abaalmarintii loogu talagalay albitarayaashan oo ah run ahaantii albitarayaasha dalkan Holland kuwa ugu khatarsan ama baan iraahday kuwa ugu shahaadada sareysa ururka Soomaali weyn ee isboortiga iyo kooxda waxay muujisay ciyaar wanaag inkastoo sanadkan mashruuca uu saacday haddana wuxuu ku guuleystay qalab isboorti bilado abaalmarin lacageed iyo koobka loogu talagalay kaalinta labaad sorry hadda waxaan sheegay Allah inaan halkan ugu yeerno ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Soomaaliyeed una ciyaari jiray kooxdii hoose Maxamed Ismaaciil si oo halkan u imaado Maxamed Ismaaciil oo sanadkan lagu martiqaaday inuu markaasi furo ciyaaraha hidda ayaa sidoo kale wuxuu bixin doonaa koobka loogu talagalay sanadkan in la guddoonsiiyo
kooxda ku guulaystay kaalinta koowaad 2011 kooxda waxaana guddoonsiin doonaa macalinka macallimiinta ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliyeed Maxamed Ismaaciil. ما هو قبل كنت فوز وانا قسم ciyaartooyda xilligan waxaa la guddoonsiinayaa biladaha loogu talagalay kadibna waxay hanan doonaan qalabka isboortiga ee tuutooyinka waxay sii hanan doonaan koobka iyagoona halkan noogu furi doona bulerka loogu talagalay inaanu sanadkaani ku faraxno oo lagu soo xirayo ciyaaraha Hilda Amsterdam ee sanadka 2011 waxay hadda haranaysaa tuutooyinka loogu talagalay in sanadkan lagu abaalmariyo TV-ga inaan ka sorry sidoo kale kooxda ku guulaystay kaalinta koowaad waxay abaalmarin u heshay abaalmarin lacageed oo la guddoonsiin doono sanadkan abaalmarinta waxaa ugu deeqday ururka Hilda. daawadayaal hadda waxaa la gaadhay amaba la gudagalay wakhtigii la guddoonsiin lahaa koobkii iyaku ay ku guulaysteen kooxdii ka socotay magaaladan iyo weliba aan idhaahdee dalkan Holland waxaa guddoonsiin doona koobka Somali Legend Maxamed Ismaaciil oo run ahaantii dad badan ay garanayaan kana bogteen taariikhdiisa kubadda cagta haddana wuxuu ku wareejiyay kabtankii kooxda halkan ka socday koobkii loogu talagalay inay guddoomaan haddana waxaa si toosa u bilaabmay dabaaldegii waxaad arkaysaan qaraxii loogu talagalay wixii la samaynayo waa hagaag daawadayaal kabtankii ayaa la wareegay koobkii haddana wuxuu u gaadhay kooxdii ayuu u tegay si toosa kooxdii ayuu hadda koobkii ku dabaaldegaysaa waxaan filayaa waad wada aragtaan daawadayaal sidaas ay koobkii u guddoonsadeen haddana waxaad aragtaan daawadayaal in ay ku guulayeen tartankii si toosa ay ugu wareegeen kooxdii ku guulaysatay waa hagaag daawadayaal hadda waxa ay si toosa u bilaabeen dabaaldegii oo si toosa ay u samaynayaan